salaamullaahi calaykum akhyaartana la socota dhawaada mar kale tabaniyo taxliilin gaara oo ku saabsan wararka ugu waaweyn ee caawa ka taagan gobolka waa 31 bisha Juulaay sanadka 2026 tabintan qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweynaha wadanka Masar General Abdel al-Sisi ayaa waxa uu ka hadlay weerarada lagu qaaday mid kamid ah dekedahiisa iyo waliba maraakiibta halkaasi waxyeeladu ay ka soo gaareen tan waxay ku soo aadaysaa iyadoo weerar xoogan ay qaadaan ciidamada ilaalada kacaanka ee wadankaasi Iran isla markaana dhibaatooyin ay soo gaareen ciidamada wadanka Masar dekada ay si gaar ah gacanta ugu hayaan ilaalada kacaanka ee jamhuuriyadda Iran ayaa weerar ku qaaday saldhigga Sheikh Ciise ee ku yaala wadanka Bahrain halkaas oo Mareykanku ay degan yihiin duqeymaha ayaa lagu tilmaamayaa inay ahaayeen kuwa xoogan kooxda xuutiga ee wadanka Yemen waxa ay ku dhawaaqeen ballaarinta dagaalka ka dhanka ah Sacuudiga xilli maanta Riyaad ay martigelisay isbahaysi dhinaca badda ah oo dagaal ah oo ka dhana kooxaha saddexgalka wax iska caabinta ee wadanka Iran gacan saarka la leh aqalka odayaasha ee Mareykanka waxay si weyn uga soo horjeesteen tallaabooyinka dagaalka ee Trump uu ku hayo wadanka Iran tan oo noqonaysa dhabarjabin weyn oo siyaasadeed oo dawladda Washington ka qabsanaysa xaaladda dagaalka inta ay bariga dhexe ku jireen ilaalada kacaanka ee dalka Iran waxa ay fariin adag u direen ciidanka CENTCOM ee Mareykanka ee jooga gobolka bariga dhexe iyo waliba 6 shirkadood oo waaweyn oo ka tirsan ilaha dhaqaalaha ee wadanka Iran oo caawa Mareykanku ay ku soo rogaan cunaqabateyn kale oo dheeri ah wararkaasi dhacdooyin kale oo taabanaya gobolka bariga dhexe dhaqdhaqaaqa caawa duqeymaha iyo waliba xiisada sii kululaanaysa ayaan ku faaqadayaa barnaamijkan meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada kuna soo biira YouTube-ka oo subscribe saara aad baad u mahadsantiin wayahay khiyaaray gobolka bariga dhexe waxa uu muuqanayaa talada inay faraha ka sii baxayso iyadoo meel xoogan ay marayaan duqeymaha iyo waliba goobaha ay wax ka dhacayaan hasaate haddii aad inala socoto fadlan halkaad naga daawanaysa qaybta hoose inoogu qor iyo waliba magaalada aad joogto aan ku sii horeeyay madaxweynaha wadanka Masar General Abdel al-Sisi ayaa waxa uu sheegay in uu ka hadlay dagaaladii ugu dambeeyay ee gobolka bariga dhexe iyo waliba duqeymaha dalka Iran ay ku sameeyeen mid kamid ah maraakiibtii taagnayd xeeliga dekad weyn oo ku taala gudaha wadankaasi Masar tan oo ka dhigan dagaalka inuu sii ballaartay Masarna ay u muuqanayso in ay ku soo jiidmayso dagaalka inay qayb ka noqoto Sisi waxa uu leeyahay baaritaanada kadib jawaab ayaa laga filanayaa Al-Qaahira laakiin waxay su'aashu tahay ma waxa jawaabta lagu qaadi doonaa weerar ciidamada Masar ay ku qaadaan gudaha wadanka Iran sida uu qorayo telefishinka Al Jazeera madaxweynaha dalka Masar General Abdel al-Sisi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay weerarka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu qaaday laba markab oo taagan jasiiradda Damietta isagoo sheegay in hay'adaha ammaanka iyo kuwa baaristu ay wadaan baaritaano lagu ogaanayo faahfaahinta sababta ka dambaysa weerarka iyo cidda arrintani ku lugta lahayd Sisi ayaa sidoo kale sheegay in xaaladda amniga ee gobolku ay sii xumaanayso isagoo carabka ku adkeeya muhiimadda ay leedahay Masar in ay ammaankeeda eegto Yurub iyo beesha caalamkuna ay iska kaashadaan sidii loo dejin lahaa xiisadahan sii kordhaya ee gobolka bariga dhexe hadalka madaxweynaha jamhuuriyadda Carbeed ee Masar intii uu qadka kula hadlayay hogaamiyaha wadanka Spain Pedro Sanchez ayuu hadalkan sheegay iyadoo labada dhinac ay ka wada hadleen xaaladda gobolka weerarka sii xumaanaya iyo waliba xiisada sii dhamaanaysa madaxtooyada ee dalka Masar afayeenkooda safiirka lagu magacaabo Mohamed al-Shinawi ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha wadanka Spain uu cambaareeyay tilaabooyinka weerarka ay la kulantay dawladda Qaahira sida uu tilmaamay caawa dagaalka gobolka bariga dhexe waxa uu u muuqanayaa inuu sii soconayo oo suuragal ay tahay isbeddello waaweyn inay soo kordhaan dawladda Iran ayaa ciidamadeeda ilaalada kacaanku waxa ay ku dhawaaqeen inay weerareen mid kamid ah saldhigyada ugu waaweyn ee Mareykanku uu ku leeyahay gobolka bariga dhexe gaar ahaan saldhigga Sheikh Ciise la yiraahdo ee ku yaala wadankaasi Bahrain ayaa waxay kamid tahay wadamada duqeymaha ugu adag ay kala kulmeen Iran taasoo la xiriirinayo abaabulka dagaalka ay wadankaasi qaybta ka yihiin ciidanka Iran ayaa ku dhawaaqay in ay
rideen baa la yidhi oo ay beegsadeen diyaarado drones iyagoo isticmaalaya saldhigga militariga ee Sheekh Ciise ciidamada cirka ee wadanka Mareykanku ay ku leeyihiin wadanka Bahrain kaas oo ay u adeegsadaan baa la yidhi ciidamada Mareykanka iyo kuwa Bahrain si wada jir ah iyadoo duqeymaha lagu qaado wadanka Iran la tilmaamay qaybo kamid ah oo laga soo abaabulay inay yihiin sida ay tilmaamayaan warbaahinta dhinaca Iran u janjeera ee wararkeeda tabiya dhinaca kale ciidamada Mareykanka ayaa Khamiistii dib u bilaabay duqeymaha ka dhanka bartilmaameedyo ku yaala gudaha Iran weeraradan ayaa la sheegay inay jawaab u yihiin weerar militari oo lagu qaaday saldhigyo ciidan oo Mareykanka uu ku leeyahay dalkaasi Urdun duqeymaha ayaa yimi kadib toddobaad ay xasilooni gobolka bariga dhexe uu ku jiray hase yeeshee ay dib u curteen dagaaladii halkaasi ka soconayay ee ka aloosnaa kooxda gacan saarka la leh wadanka Iran ee Xuutiga ee gacanta ku haysa magaalooyin muhiim ah oo ay ka mid yihiin caasimadda wadanka Yemen ee Sanca ayaa ku dhawaaqay dib u yabyabida iyo ballaarinta dagaalo kale oo xoog leh oo lagu qaadi karayo dowladda Sacuudiga tani waxay ka dambeysay markii maanta magaalada Riyadh lagu martigeliyay shir aad muhiim u ahaa oo looga soo horjeedo dhinacyada gacan saarka la leh dowladda Iran taas oo ilaa 14 wadan la sheegay in dowladda Sacuudiga ay isku keeneen hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa kooxda Xuutiga ayaa waxa uu Cabdimalik al-Xuuti ayaa sheegay in haddii Sacuudiga uu sii xoojiyo weerarada ka dhanka Yemen ay iyana kaga jawaabi doonaan weerar ka sii xoog badan midkii ay dowladda Sacuudiga qaado ayuu ku yiri war uu maanta ka sii daayay warbaahinta Al-Masira Xuutiga ayaa sidoo kale sheegay in wadan kasta oo diyaarado military ka iibiya Sacuudiga isagoo sheegay in dalalkaasi ay la kulmi doonaan cawaaqib haddii ay si toos ah uga qayb qaataan dagaalka diyaaradahaasi Sacuudiga ay iibsadeen khudbada uu jeediyay ayuu ku sheegay in Sacuudiga uu muddo ka badan 12 sano la shaqeynaya Mareykanka si loo weeqay Yemen loogana qaado weerar madax banaanideeda waxa uu sheegay in dadaalada militarigu ay fashilmeen taasina ay sababtay in la gaaro marxalad lagu yareynayo dagaalka iyadoo Xuutigu ay u egyihiin hadda inaanay aqbali doonin tillaabooyinka Sacuudiga uu qaadayo al-Xuuti ayaa sheegay in shacabka Yemen ay muujiyeen adkaysi isla markaana aysan wakiil u ahayn baa la yiri dal kale balse ay u dagaalamayaan xorriyadooda iyo difaaca qarankooda muhiimka ah waxa uu sidoo kale ku eedeeyay Sacuudiga in uu xanibay dhaqaalaha Yemen isagoo sheegay in Riyadh ku istaagtay dalal si buuxda uga faa'iideysan lahaa shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah gaar ahaan gobolada Al-Mahra iyo Al-Jawf taas uu sheegay in ay sababtay in dowladda Yemen ay weydo dhaqaale lagu bixiyo mushaaraadka shaqaalaha iyo adeegsiga bulshada gaarka ah adeegyada muhiimka ah waxa uu sidoo kale sheegay in dagaalka iyo godoominta ay burburiyeen kaabayaasha dhaqaalaha samarkaana ay xirmeen ay kordheen baa la yiri xaaladaha bini'aadanimada ee wadanka Yemen ka taagan Xuutiga waxa uu ku eedeeyay Sacuudiga in ay la shaqeeyaan Mareykanka Israa'iil iyo Ingiriiska isagoo ku antacooday in Riyadh ay taageerto danaha Israa'iil isla markaana ay isku dayayso inay saameyn ku yeelato siyaasadda gudaha iyo godoominta wadankaasi Yemen waxa intaasi dheer waxa uu cambaareeyay weerarada uu ku tilmaamay kuwa Mareykanka iyo Sacuudiga ay ku fuliyeen gudaha wadanka Ciraaq taas oo tacsi u diray shacabka iyo qoysaska dadkii waxyeeladu ay ka soo gaartay sida uu hadalkiisa u dhigay aqalka odayaasha ee wadanka Mareykankana waxa ay qaadeen tillaabooyin ka dhana qorshayaasha Trump ee gobolka bariga dhexe taas oo u muuqanaysa dagaalka wadanka Iran inay saameyn weyn ku yeelan karayso waa dhabarjab siyaasadeed oo weyn oo dowladda Washington ka qabsanaya gudaha siyaasadeeda kala qaybsan ee lagu wajahayo dagaalada gobolka bariga dhexe golaha sanadka ee Mareykanka ayaa cod aqlabiyad leh ku deeday hindisa sharciyeed lagu doonayo in lagu joojiyo howlgallada militariga ee Mareykanka uu ka wado gudaha Iran go'aankan ayaa yimi xilli ciidamada Mareykanku ay Khamiistii dib u bilaabeen duqeymo ay ka fulinayeen bartilmaameedyo ku yaala gudaha wadanka Iran dowladda Washington ayaa sheegtay in weeraradan ay jawaab u yihiin weeraro ay Iran ku qaaday saldhigyada ciidamada Mareykanka uu ku leeyahay dalkaasi Urdun howlgalladan ayaa dib u bilowday kadib ku dhawaad toddobaadyo ay xaaladdu aad u deganayd ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa fariin u diray taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee CENTCOM ee ka howlgala qaybta bari wadana dagaalka dowladda Iran ee hadda lagula jiro CENTCOM ayaa sheegay in 50,000 oo askari
dabaabaad culus, diyaarado dagaal iyo waliba qalab istiraatiiji ah oo tiknoolajiyada dagaalka loogu talagalay ay hadda ku hayaan gobolkaasi bariga dhexe. ilaalada kacaanka ee dowladda Iran ayaa ugu baaqay taliska dhexe ciidamada Mareykanku inay joojiyaan waxay ku tilmaameen qarinta xaqiiqooyinka ku saabsan dagaalada socda. war-saxaafadeedka waxaa lagu yiri waxaan ugu baaqaynaa taliska dhexe ee militariga Mareykanku inay joojiyaan qarinta iyo mugdigelinta xogta si dunida ay u aragto sida ay u ciqaabayna buu yiri cid kasta oo nagu soo duusha. hadalkan oo u muuqanaya dowladda Iran in xeelad dagaal oo dhinaca fikirka iyo warbaahinta ay hadda si toos ah u galayaan. hadalkan ayaa imanaya iyadoo ay sii kordhayaan iska hormaadyada militariga ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran oo muddo hadda aad u ballaaran galay, xaaladihii ugu adkaanay u muuqanayaan in ay saameyntoodu ballaaranayso. dhinaca kalena dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday ciqaab cusub oo dhaqaale oo wadanka Iran uu wajahayo, iyadoo ilaa iyo 6 shirkadood oo dhaqaalaha wadankaasi saameyn ku leh lagu soo waramayo caawa in cunaqabatayn la saaray, taasoo ujeedadu ay tahay dowladda Tehran inay la kulanto dhibaatooyin dowladda Washington ay ku sameynayso. dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday cunaqabatayn cusub oo lagu soo rogay 6 shirkadood iyo shakhsiyaad ku kala sugan dalalka Shiinaha, Hindiya, Ruushka iyo Iran, iyadoo lagu eedeeyay in ay taageero fiinayaan baalire ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran. sida ay sheegtay wasaaradda amuraha dibadda ee Mareykanka, cunaqabataynta ayaa beegsatay hay'ado la sheegay in ay taageeraan shirkadda diyaaradaha ee Mahan Air, taas oo Mareykanku uu ku eedeeyay in ilaalada kacaanku ay adeegsadaan daadinta hubka iyo waliba ciidamada qalabka sida iyo kuwa militariga ee wadankaasi Iran. cunaqabataynta ayaa sidoo kale la saaray dhowr shirkadood oo ay ka mid tahay Dad Nature Start Up Studio oo Mareykanka uu ku tilmaamay shirkad dabool u ah ilaalada kacaanka. dowladda Mareykanka waxay sheegtay in shirkadu ay qayb ka tahay ururinta xog ku saabsan goobaha ay ku sugan yihiin qalabka saldhigyada militariga ciidamada Mareykanka Israel ee ku yaala bariga dhexe ee dowladda Iran ay weerarka ku qaado. wasaaradda amuraha dibadda ee Mareykanka ayaa ugu baaqday shirkadaha iyo ganacsatada caalamka, gaar ahaan kuwa la macaamila Mahan Air oo ah shirkad diyaaradeed, iyo shirkadaha kale ee diyaaradaha Iran ee saaran cunaqabatayntu in ay ka fiirsadaan qataraha sharci iyo dhaqaale ee ka dhalan karaya sii wadista xiriirada ganacsiga ay la leeyihiin. Mareykanka ayaa sheegay inuu sii wadi doono dabagalka iyo cunaqabataynta hay'adaha iyo shakhsiyaadka lagu eedeeyo in ilaalada kacaanka ay siiyaan qalab, adeegyo ama xog ay u adeegsadaan howlgallada militariga, kuwaas oo Washington ay sheegtay in ay qatar ku yihiin ciidamada Mareykanka iyo xulafadooda gobolka bariga dhexe. ciyaartay nala socotay dhacdooyinkaasi waxay ahaayeen kuwa ugu waaweynaa oo xilligan ka taagan gobolka bariga dhexe, samarkaana ay faaqidayaan warbaahinta caalamka. warar iyo sheekooyin kale ayaynu ku tabin doonaa tabinadeena xiga, balse marka ugu horeysa halkaad joogto inoogu soo qor iyo halka barnaamijkan aad ka daawanaysa qaybta faallada. hilmaamin inaad like saarto muuqaalkan, share garayso saaxiibadana aad la wadaagto. macluumaadkan aad halkan hoose ku qoraysaan tabinadeena kale ayaad ku daawan doontaan. soo dhawaada.